Assalaamu calaykum. Waxaan ku bilaabayaa barnaamijkeena maanta su'aal. Ma sheegi kartaa codkan xayawaanka iska leh oo aad moodo shimbirta? U coday saddexdan xayawaan mid ka mid ah. Haramcadka oo cheetah Ingiriiska lagu dhaho, mise nooc ka mid ah daanyeerada, amase dameer farowga. Intaa kadib waa macluumaad dhowr ah oo aan soo aruuriyey. Tuulo ku taalla waddanka Nigeria oo la dhaho Ubang ayaa waxaa ka jira system cajiib ah. Ragga iyo dumarka ayaa ku kala hadla laba luqad oo kala duwan. Wiilka goorta uu 10 sano gaaro ayaa waxaa la baraa luqadda ragga. Ragga iyo dumarka tuuladan waa ay isfahmaan, laakiin ma dhici karto in raggu ay isticmaalaan luqadda dumarka. Tusaale ahaan, ragga ayaa waxa ay eeyga ugu yeeraan abu, halka dumarkuna ay dhahaan akwake. Tukaha ayaa waxa ay saynisaanadu ku tilmaamaan inuu yahay shimbiraha kan ugu caqliga badan. Haddii mid ka mid ah uu ka dhinto, inta ay qayliyaan ayay ku soo aruuraan. Iyaga iyo maroodiga waxay ka mid yihiin xayawaanada farakutiriska ah ee u baroor diiqa marka ay cidi ka dhimato. Haddii uu qof dilo ama dhibaato u geysto mid ka mid ah, ma ilaawaan oo marka uu qofkaasi ay arkaan, digniin qayla ayay ku dhufanayaan iyagoo u digaya asxaabtooda kale. Quraanyadu waxay ka mid tahay xasharaadka ugu faraha badan ee ku nool qaaradaha kala gedisan, iyagoo u kala baxa noocyo aad u fara badan. Waxaa ka mid ah nooc adoonsada quraanyada kale, sida quraanjadan loo yaqaan Amazon ant, oo waxay duulaan ku qaadaa noocyo kale oo quraanyada ka mid ah. Waxa ay soo xoogtaa ukuntooda. Hadhow marka ay ukuntaasi quraanjo noqoto, ayaa waxay u shaqaynaysaa ciddii soo xoogtay oo cunto u raadinaysa. Wadnuhu waxa uu ka mid yahay xubnaha ugu muhiimsan jirkeena oo aanu ka maarmi karin. Calaamadaha in qofku nool yahay waxaa ka mid ah in wadnuhu gargaraacayo oo dhiigga jirka u gudbinayo. Laakiin dadka qaybtooda ayaa wadnaha ka xanuusta, taasoo mararka qaarkood keenta in wadnahooda laga saaro oo ay dadkaasi wadno la'aan ku noolaadaan muddo dheer oo mararka qaarkoodna sannado gaarta. Dadkaas ayaan lahayn garaaca wadnaha, haddaba sidee bay u nool yihiin? Dadkan ayaa inta ay sugayaan wadno loogu tabaruco, waxa ay dhakhaatiirtu ku xiraan qalab socodsiiya dhiigga, sida ku dhacday Stan Larkin oo 25 jir ah. Ninkan ayaa sannad iyo bar waxaa shaqada wadnaha u qabanayay qalabkaas, isagoo nolol maalmeedkiisa si caadi ah u qabsanayay ilaa uu ka helay qof dhintay oo wadnihiisa lagu tallaalay. Qalabkan oo la dhaho artificial heart ayaa waxa uu ku shaqeeyaa batari oo qofku ku qaato boorso dhabarkiisa saaran. Laakiin qalabkaani sida wadnaha oo kale garaac ma sameeyo oo dhiigga si xiriir ah ayuu u gudbiyaa. Ugu dambeyntii, haddaan ka jawaabno su'aashii hore, ayaa waxaa codkaasi sameeya haramcadka ee Ingiriiska loo yaqaan cheetah, oo ah xayawaanada kan ugu dheereeya, isaga oo sameeya codad kale oo kala gedisan. Intaas ay noogu joogto macluumaadkii maanta. Haddii aad ka heshay, like iyo subscribe samey. Intii aan mar dambe kulmayno, nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.